Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada kanaalka Cabdicasiis Boorle. Maanta waxaynu kaga hadli doonaa mowduuceena hogaamiyihii xisbiga naasiga ee waddanka Jarmalka, Adolf Hitler. Adolf Hitler waxa uu ku dhashay magaalada Braunau ama Inn ee waddanka Austria, Hungary, maantana loo yaqaano Austria. Taariikhdu markii ay ku beegneed 20kii bishii Afraad 1889. Aabihii waa Adolfus Hitler. waxa uu dhalay 6 caruura. Adolf Hitler waxa uu ahaa kan afraad marka xagga tirada loo eego. Hooyadii magaceeda waxaa loo yaqaanay Clara Pols, waana xaaskii saddexaad ee aabihii guursado. Hitler waxa uu haystay diinta Kiristaanka sababtoo ah labadiisa waalidba waxa ay ahaayeen Kiristaan. Hitler markii uu 3 jirsaday ayaa waxa ay u guureen qoyskiisii magaalada Passau ee Germany. Run ahaantii Hitler noloshiisii hore waxa ay ahayd mid aad u adag sababtoo ah aabihii inta badan waa uu dili jiray. Hitler waxa uu ahaa arday ku fiican waxbarashada inkastoo uu dhacay fasalkiisii 6aad oo waaga ahaa fasalka 1aad ee dugsiga sare. Markii la weydiiyay Hitler waxa uu jeclaa inuu noqdo, waxa uu ku jawaabay, ma rabin inaan noqdo askari, balse waxaan jeclaa inaan noqdo artist. Intaas haddii aynu ku soo dhaafno noloshii yaraantii ee Adolf Hitler, muddadii lagu jiray dagaalkii 1aad ee dunida, Hitler waxa uu ku jiray ciidanka Jarmalka ee aagga waqooyi ka dagaalamayay. Shaqadiisu waxay ahayd inuu fariimaha u kala qaado ciidamada dagaalka ku jira iyo kuwa dhufaysyada fadhiya, waana mid ka mid ah shaqooyinka ugu halista badan ee dagaalka. Kadib dagaalka, Hitler waxa uu yimid magaalada Munich, waxa uuna ku biiray caalamka siyaasadda. Hitler waxa uu ku biiray xisbiga hanti-wadaagga shaqaalaha Jarmalka, loona yaqaanay xisbiga naasiga. 1923 ayaa ciidamada xisbiga naasiga oo uu hogaaminayo Hitler waxa ay sameeyeen iskuday inqilaab, balse waa ay ku fashilmeen. Hitlerna waxa lagu tuuray xabsiga, waxaana lagu xukumay 3 sano oo jeel ah, inkastoo 9 bilood ka bacdi la soo daayay sababtoo ah dhaqankiisii ayuu hagaajiyay. Bishii 3aad 1933 ayaa Hitler waxa uu qabsaday kursiga madaxtinimada ee dalka Jarmalka. Haddaba waxyaabaha Hitler u fududeeyay inuu noqdo madaxweyne ayaa waxa ugu horeysay nacaybka uu qabay jinsiga saamiga ah ama dadka Yuhuudda. Haddaba haddii aynu dib u eegno waxyaabaha ku kalifay inuu necbaado Yuhuudda, waxa aynu odhan karnaa nacaybka Hitler ee Yuhuudda waxa la yiraahdaa waxa uu ka bilaabmay markii uu joogay magaalada Vienna oo ay ku noolaayeen jaaliyad Yuhuud ah oo ka soo qaxay dalka Russia. waxa kale oo saameyn weyn ku yeeshay buugaagtii uu qoray Martin Luther ee magaceedu uu ahaa On the Jews and Their Lies, taasoo noqonaysa Yuhuudda iyo beentooda. Inuu Hitler ku saamoobay qoraagan waxaad ka garanaysaa buugga uu qoray Hitler ee ku saabsan noloshiisii ayaa waxaa si weyn ugu ammaanay Martin Luther oo ay wadaageen nacaybka isirka saamiga ah. Hitler waxa uu mas'uuliyadda dhibaatooyinka dhaqaale iyo tan bulsho ee ka jirtay dalka Germany dhabarka uu saartay dadka Yuhuudda oo ah inuu aaminsanaa in ay adduunka dib u dhac ku yihiin oo ay waajib tahay in la xasuuqo. Isla markii uu Hitler xukunka qabsadayna waxa uu bilaabay inuu dadkii Yuhuudda ahaa uu ka qaado dhalashada dalka Germany iyo weliba xuquuqda ay leeyihiin oo ay ka mid tahay 1 inay codeeyaan, 2 inay qabtaan shaqooyinka bulsho, 3 inay isdhexgalaan dadka Jarmalka ah, 4 inaan la guursan lagana guursan. waxa la sameeyay xaafado ay Yuhuuddu leeyihiin oo aan cid kale geli karin. Yuhuudiga ka soo baxana waa la toogan jiray, balse markii dambe waxa la sameeyay kaamis ama xeriyo lagu xasuuqo dadka Yuhuudda. waxaa lagu qiyaasaa in 6 milyan Yuhuud ah uu dilay Hitler. inta haddii aynu kaga nimaadno Yuhuudda, waxa aynu gelaynaa siyaasadii Hitler dalka Jarmalka gudihiisa waxa uu ka bilaabay isbedelo fara badan
oo ay ugu horeysay inuu dhisay ciidan xoog badan oo dalka dhalinyarta waxa lagu qasbi jiray inay ciidanka ku biiraan inuu hagaajiyo dhaqaalaha dalka Jarmalka kadib hoos u dhac weyn oo ku yimid inuu soo ceshay kalsoonidii shacabka Jarmalka ah Hitler waxa uu bilaabay inuu jabiyo heshiisyadii la gaadhay dagaalkii koowaad ee dunida waxa uu ciidan geeyay Rhineland oo ahayd dhul aan ciidan loo ogolayn waxa uu sidoo kale weeraray dalka Yugoslavia iyo Poland siyaasadda Hitler waxa ay ku dhisneyd gardarro iyo wax kasta oo xoog lagu raadsho Hitler waxa uu nacayb dhab ah u qabay dalalka Britain iyo France oo ahaa labada cadow ee dalka Jarmalka ee dagaalkii koowaad sababna uu ahaa Jarmalka jabkiisa Hitler waxa uu ka baxay ururkii qaramada waxa uuna bilaabay inuu awood ciidan isticmaalo taas oo markii dambe sabab u noqon doonta bilowga dagaal weyne labaad oo dawladaha Yurub oo dhami ay ku hoobtaan dalalka Britain iyo France oo ahaa labada quwadeed ee Yurub waxa cabsi badan gelisay siyaasadda gardarada ku dhisan ee uu Hitler wado waxa ayna bilaabeen siyaasad maslaxada oo wax kasta oo uu dalbado Hitler waa ay siin jireen si ay uga hortagaan dagaal labaad oo Yurub ka dhaca balse Soomaalidu waxay ku mahmaadaan niman shani ka reebin sharci kaama reebo waxa ay isku dayeenba inay dagaal ka hortagaan oo maslaxad ku wadaan iyagu ugu dambeyntii waxa ay ka maarmi waayeen in ay dagaal la galaan dalka Jarmalka oo khatar ku noqday dhammaan Yurub Hitler markuu si buuxda ula wareegay xukunka dalka Jarmalka waxa uu ku tallaabsaday tallaabo horumaro oo aad u ballaaran oo si weyn looga dareemay dhammaan Yurub iyo daafaha dunidaba waxa uu dhisay ciidan aad u ballaaran oo ay ka cabsadaan dhammaan dawladaha Yurub waxa uu ku dhiiraday inuu dhiso ciidamada badda oo waqtigaas noqday mid u gaar ah labada dal ee Britain iyo Mareykanka taas oo si dheer waxa uu u dhisay ciidamada cirka cunaqabatayna laga saaray dagaalkii koowaad kadib sidoo kale waxa uu dhisay bulsho Jarmal ah oo isku dhisan intaas haddaynu kaga nimaadno waxqabadyada uu Hitler qabtay waxaynu si buuxda uga hadlaynaa siyaasaddii Hitler sababta u noqotay dagaal weyne labaad Hitler waxa uu si gardarro ah u weeraray dalka Poland oo uu si xoog ah ku qabsaday kadib dawladaha Yurub waxa ay iclaamiyeen dalkii ugu horeeyay ee dagaalka iclaamiya waa Britain iyo France Russia ma iclaamin ilaa uu Jarmalku weeraray dagaalku waxa uu noqday hal aag ama hal jiho oo ah dhanka waqooyi ama Western Front oo ay iskaga soo horjeedeen ciidamada Germany dhanna waxa wada ahaa amba xulafo ahaa wadanka Britain France iyo xulafadoodii kale dagaalka guushiisii hore waxa lahaa dalka Germany oo si geesinimo leh u qabsaday magaalada Paris ee caasimadda dalka France kadibna waxa uu bilaabay inuu dagaal cirka ah ku qaado magaalada London ee dalka Britain run ahaantii qaladka Hitler waxa uu ahaa markii uu go'aansaday inuu dalka Russia oo xagga bari ka xiga uu weerar ku qaado dagaalna uu iclaamiyo iminka Jarmalku waxa uu ku jiraa laba dhardhaar dhexdood xagga galbeed waxa ka xiga Britain iyo France xagga barina Russia iyada oo ay saasi jirto dhammaan xulafadii Jarmalkana laga adkaaday marka laga reebo Japan oo iyana sabab u noqotay in Mareykanku uu soo galo dagaalka Hitler riyadiisii ahayd inuu qabsado dhammaan Yurub waa ay soo gabagabowday kadib markii laga adkaaday dagaalka kadib Hitler waxa la soo diristay xaalad caafimaad xumo iyo niyad jab taasoo sabab u noqotay inuu gacantiisa isku dilo Hitler wuxuu ku aasan yahay Bunker ee magaalada Berlin wad mahadsantiin